kale waxaa geeriyootay Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu anha. Sharafta ay qoomkeeda ku dhex lahayd iyo hantida uu Ilaahay u siiyay ay u kala tartami jireen ganacsatada ugu waaweyn inay shariik kula noqdaan. Waxaa u dheeraa inay noqotay xaaskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Naf iyo maalba way u hurtay. Waxay u ahayd saaxiib midka ugu wanaagsan, xaas midda ugu baarisan, walaalka ugu qiimaha badan. Xanaan, naxariis, taageero, dhiirigelin, sabarsiin agteeda ayuu ka helay. Ilaa heer Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahay markay dhimatay kadib, ma jiro qof ii bedelay Khadiija. Fiir garabka ay siisay Nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu bilaabay inuu ku cibaadeysto qaar Xiraa. Cunada intay u soo qaaday ayay meeshiisa ugu keeni jirtay. Maalinkuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam guriga soo galay isagoo leh nafteedan u baqay dadaboola. Garabka ay siisay wuxuu ahaa inay xasuusisay ruuxa asaga camal ah oo miskiinka baahan u gargaara, xiriiriya qaraabadiisa, martida soora oo sidaas u wanaaga badan inuusan Ilaahay dayacaynin. Wax walba oo noloshiisa ku saabsan way la socotay, bal waxay ahayd bini'aadan qofkii u horeeyay ee rumeeyay. Deeqsinimada iyo geesinimada Khadiija waxaad ka arki kartaa markii Quraysh cunaqabatayn ay saartay Bani Haashim iyo Bani Cabdi Manaaf oo ah qoysaskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam si Nabiga ay u dhibaateeyaan uuna u joojiyay dacwada. Xilligaas waxay fartay in adeerkeed Xakiim bin Xisaam inuu ka biilo hantideeda qoysaska muslimiinta ah inta cunaqabataynta ay socoto. Alla nasiib badneeda Khadiija, maalinkuu Jibriil soo degay asagoo bishaaro u wado, waxay Nabiga u soo waday cunno ama cabitaan. Jibriil calayhi salaam wuxuu ku dhahay Nabiga, Muxammadow, tani waa Khadiija, waxay kuu keentay cunno ama cabitaan. Gaarsii salaanta Rabbigeeda u soo diray iyaguna salaan. Waxaana ugu bishaaraysaa qasri luul ah oo jannada ku dhex yaal, aan lahayn buuq iyo daal. Markay dhimatay kadib, Nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ayuu u murugooday, mar walbana wuu xusi jiray. Markuu xoolaha qalo, hilibka wuxuu wax ugu dhiibi jiray saaxiibadeeda. Ilaa heer Caaisha ay ka masayri jirtay jacaylka Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jecel yahay Khadiija. Sidoo kale Nabigu wuxuu dhahay, Ilaahay qof ayada ka khayr badan muusan iigu bedelin. Waxay i rumaysay markay dadku igu gaaloobeen, waxay i rumaysatay markay dadku i beeniyeen, maalkeeda igu bixisay markay dadku iga xarimeen. Haddaba walaalayaal, ku dayasho wanaagsan waxaa ka qaadanaynaa Khadiija radiyallahu anha. Qofkii rabo in xabiibkiisa uu jeclaado, garab ha u ahaado mar walba, markuu awood leeyahay iyo markuu daciifo intaba. Ku caawi inuu gaaro riyadiisa mar walba, si maskaxdiisa markaa ku soo dhacdo ugu fakaro in noloshaba la'aantaada waxba ahayn. Ilaahu garab nooga dhig dadka jecelnahay inta nolosheena iyo noloshooda ka dhiman.